Assalaamu calaykum. What's up perfecties? Kusoo dhawaada podcastgeena Perfect Sport with Fatima. Waxaa mar walba idin soo jeedin doonta anigoo ah Faadumo Diibaan Axmed. Mowduuca maanta aan ka hadli doono waxaa lagu magacaabaa awoodda niyadda. Sidee caadooyinkaaga ugu bedeli kartaa cibaadooyin? waxaan ku bilaabeynaa magaca Ilaahay, ismullaahi al-Fattaax, siduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala noogu furo albaabada fahamka. Mowduucan niyadda ah waa mowduuc aad iyo aad u muhiim ah oo nolosheena saameyn weyn ku leh. Dadkii waagii hore joogeen amaba culimadii waagii hore waxay siyaabo kala duwan ay u isticmaali jireen, faa'iido badanna way ka heli jireen. Laakiin aniga fahamka ka haysano waa faham xadidan. Niyadda waxaa u isticmaalnaa cibaadooyinka qaarkood, sida markii qofka bini'aadanka wayse qaadanayo amaba salaada tukanayo ama sadaqeysanayo ama xaj iyo cumro sameynayo. laakiin niyadda intaas way ka baaxad weyn tahay oo kuma eka cibaadooyinka kaliya. waxyaalo kale waxaa jira haddii bini'aadanka uu niyad Ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisa uu ku daro ajir badan uu ka helay adduunyo iyo aakhirabo. sidaas daraadeed maanta mowduucan ayaa ka hadli doonaa. waxaan u kala qaybin doonaa ilaa 2 qaybood. qaybta koowaad oo ah sidee diinta islaamka mowduucan uga hadashay, axaadiista kasoo aroortay, culimada waagii hore sidee u isticmaali jireen iyo maxay ka dhaheen. qaybta labaad waxaa uga hadli doonaa sidee noloshaada qayb ugu soo dhigi kartaa niyadda, sidee adduunyo iyo aakhiraba labadaba uga faa'iidi kartaa. haddii aan ku bilaabo islaamka, waxaa jiro xadiis caan ah oo lagu magacaabo innamal a'maalu binniyaat. xadiiskan waxaa wariyay Cumar bin Khataab radiyallahu anhu. Cumar wuxuu dhahay, waxaa maqlay rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam asagoo dhahaya, innamal a'maalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa, faman kaanat hijratuhu ila Allahi wa rasuulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث كان وحاوك القاضي دونا إلا 4 قيبوت. قيبت كواتو إنما الأعمال بالنيات، يعني عمل والبو بن آدم سميناي وحالة سعته نية عمل كاغ إنه إلهي أقبله وحيكو حيرانته نوع نية أو نيستي. qaybta labaad oo ah wa innamaa likulli imri'in maa nawaa, yacni qof walba wuxuu camalka uu qabanayo wuxuu u niyeysto ayuu leeyahay. meeshaaneyta wax ma lagugu xadidin, yacni camal walba aad sameynaysid niyadda aad u niyeysatid intay la eg tahay ayuu Ilaahay ajir ah kugu siinayaa. qaybta saddexaad oo ah faman kaanat hijratuhu ila Allahi wa rasuulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasuulihi. qofkii hijradiisu ay ahayd ama baniyada camalkaas oo qabanay ay ahayd inuu u sameeyo Ilaahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dartiisa, Ilaahay niyadaas ayuu u awaal marinaya. qofkay hijradiisu ahayd inuu adduunyo soo asiibo ama gabar uu guursado, asana wuxuu u doonta ayuu Ilaahay siinaa. yacni lagama wado haddii qofkeena uu adduunyo aado ama gabar uu guursado inay tahay camal yar amaba camal hooseeya. laakiin waxaa fiican camalkaas aad qabanaysid hadaa inaad Ilaahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam niyad dartiisa aad ugu dartid, sidaa markaasiyada faa'iido badan aad ku heshid, tan adduunyo iyo tan aakhirabo. xadiiskan wuxuu noo cadeynaa ahmiyadda ay leedahay niyadda siduu islaamku u weyneeyay. laakiin aniga fahamka ka qabno waa faham xadidan. niyaddani intaas way ka weyn tahay. culimada waagii hore waxaa lagu magacaabi jiray inay ahaayeen tujaaru niyya, ay niyadda ay ka ganacsan jireen. markii niyadda ay ka ganacsan jireen la dhahayo ma aha inay niyadda lacag ay ka sameey jireen, laakiin sidaa wada ognahay businesska waxaa laga sameeyaa waa faa'iido badan. soo ayaga waxay zaid ugu faa'iidi jireen niyadda, ayagoo camal walba ay sameynayaan niyad Ilaahay dartiisa ay ku dari jireen. laga yaabo halkii camal
inay 5 ilaa ama 10 niyad ay u niyeystaan ama hal niyad u niyeystaan, laakiin mar walba waxay ku dadaali jireen amal walba ay qabanayaan amalkaas ha yaraado ama ha weynaado inay Ilaahay dartiisa u sameeyaan si markaaseti ajir badan ugu helaan mudada amalkaas ay sameynayaan oo dhan waqtiga ka qaadanayaan inuu ajir u socdo. sidaas daraadeed qaybtan zaid ay ahmiyad u sii jireen wayna ku dadaali jireen. waxaa jira taabici weyn lagu magacaabo Cabdullaahi ibn Mubaarak. Cabdullaahi wuxuu dhahay rubba camalun saghirun tu'adhimhu niyya wa rubba camalun kabiirun tusaghiru niyya. laga yaabo camal yar bini'aadamku uu sameeyay niyada oo u niyeysta daraadeeda inay Ilaahay agtiisa ay ka noqoto camal weyn ajir badan uu ka helo. laga yaabo camal weyn bini'aadamku uu sameeyay niyada oo u niyeysta daraadeeda inay noqoto camal yar Ilaahay agtiisa oo ajir yar uu ku helo. sidaas daraadeed muhiim waay camal acmaasha aan sameynayna inaan niyad Ilaahay dartiisa ku darno si markaas ajir badan aan ugu helno. haddii aan u gudbo qaybta labaad oo ah sidee niyada nolol maalmeedkaaga ugu soo dari kartaa, sidee ugu mid noqon kartaa dadkii lagu magacaabi jiray tujaaru niyya ee niyada ganacsan jireen. tusaale ahaan waxaa soo qaadan doonaa 2 qof oo nolol maalmeedkooda isku wax sameeyaan, laakiin qof waxaa ku magacaabeynaa inuu yahay taajiru niyya ee niyada ayuu ka ganacsadaa camal walba uu sameeyana niyada ayuu ku daraa. qofna waa qof iska caadi nolol maalmeedkiisa si caadi ayuu u sameeyaa wax niyad mucayan ah ma ku daro. soo tusaalaha labada qof ayaa tusaale soo qaadan doonaa. waxaa ka bilaabeynaa waxa uu horeey bini'aadamka ay sameeyaan subaxdii markay soo kacaan. tusaale ahaan 2 qof ayaa hal mar soo wada kaceen suuliga ayay wada aadeen. waxay bilaabeen inay cadeystaan. qofka koowaad markuu cadeysanayay wuxuu u niyeystay camalkan oo ah rumeysiga inuu ku deysado nabiga calayhi afdalus salaatu wassalaam maadaama uu nabiga noogu boorin jiray inaan cadeysano. qofna caadi ayuu iskaga cadeystay. tan hadana waxay bilaabeen labadoodba inay weyse qaataan. qof markuu weyse qaadanayay wuxuu u niyeystay camalkan weyse qaadashada ah inuu Ilaahay ugu dambi dhaafo. qofna caadi ayuu iskaga weyse qaatay. labadoodba waxay wada aadeen masjidka inay salaada ku soo dugtaan. qof intuu wadada ku jiro wuxuu u niyeystay tilaabo walba uu qaaday masjidka dhankiisa inuu Ilaahay dambi dhaaf ugu dhigo, inuu beedka Ilaahay camiro maadaama masjidka ay tahay guriga Ilaahay. tan saddexaad uu niyeystay isla camalkii inuu salaada Ilaahay uu ag dhawaado. qofna caadi salaada ayuu iska aaday. markay salaadada labadooda dhameysteen waxay bilaabeen inay quraanka akhristaan. qof markuu quraanka akhrisanayo wuxuu u niyeystay kalmad walba uu aqriyo inuu Ilaahay ajri xasanaad uu ku siiyo. qofna caadi ayuu iskaga akhristay. marka waxay sameeyeen labada qofba inay xaafadood ku soo wada laabtaan. waxay bilaabeen tusaale ahaan inay wax cunaan. qof markuu wax cunayay wuxuu dhahay Allahumma ij'alhu awnan fi ta'atika. Ilaahay cuntadana cunayo ka dhig mid oo taacadaada igu kaalmeyso, mid jismigayga uu ku helo awood badan si markaas ay taacadaada ku guto. qofna caadi cunada wuu iska cunay. tusaale ahaan hadan waxay bilaabeen labadii qof inay dhar xirtaan, dhar nadiif ah ay xirtaan, barfuun ay isticmaalaan, karin ay marsadaan, timaha ay hagaajistaan, kabo nadiif ay xirtaan. qof intuu wadayna processkaas dhan oo ku jiro wuxuu u niyeystay inna Allaha jamiilun yuhibbul jamaal maadaama Ilaahay uu qurux badan yahay uuna jecel yahay quruxda. sidaas daraadeed inuu isku qurxiyo. niyada labaad oo niyeystay waxay ahayd muslimka waa midka xasanul mabhar madharkiisa ay toosan tahay, caraftiisana ay tahay caraf fiican. qofna processkaas ku jira caadi ayuu iskaga sameeyay wax niyo mucayan muusan ku xirin. hadan waxay bilaabeen inay magaalka aadaan. tusaalaha waxaa kala qaadeynaa 2 qofood kale, qof waxbarasho aadayo iyo qof shaqo aadayo. qofka koowaad markuu waxbarashada aadayo wuxuu u niyeystay inuu ka mid noqdo min tulaabul cilmi, yani tulaabul cilmi ma ku koobna oo kaliya dadka diinta bartaan axaadiista ama kutubta raacaan, laakiin tulaabul cilmi waxaa dhihi karnaa qof walba oo cilmi baranayo cilmigaas nuucu rabo ha ahaadee.
soo qofkaas wuxuu u niyeystay inuu ka mid noqdo min tulaabul cilm, wuxuu kaloo u niyeystay inuu ka mid noqdo dadkii malaa'igta maxaa la lahaa garbaheeda ay ku daboosho. qofna caadi cilmiga ayuu iska doontay. tusaalaha kale, qof wax oo shaqo aadaya, qofka bini'aadanka markuu shaqada aadaya subaxii hadduu u niyeysto shaqadan uu qabanayo inuu ilaahay asaga iyo intii familkiisaba uu ku asturo, inuu ilaahay maxaa la lahaa uu ka reebo inuu dadka wax weydiisto, uu yahay bini'aadan isku filan, inuu xoogi ilaahay siiyo iyo cilmiga ilaahay siiyo uu ka faa'iideysto oo ilaahay uu mahad celinaayo. yacni shaqadan aan qabana ilaahayow adaa kaaga mahad celinaya maadaama ay siisay xoog iyo aqliga iyo cilmiga ay siisay. qofna caadi shaqada wuu iska aadi. dan tusaale ahaan haddana waxaan usoo qaadanaynaa qof macalin ah oo arday wax baraya. markuu macalinkaas wax walba ardaydaas wax baraa hadduu usoo niyeysto inuu ilaahay ardaydaas jahliga uu ka bixiyo oo usoo geliya maxaa la nuurka cilmiga, inuu ilaahay ajir xasanaadka siiyo, ardaygaas cilmigaas uu bartay intuu ka intifaacay dhan macalinkaas ajir ayaa u socdo. macalinkaas laba shay ayuu ku guuleystay. guusha koowaad oo ah inuu mushaarkiisa helo mar walba, guusha labaad oo ah inuu ajir u socdo. soo maxaa diidaa meeshaad hal shay ka guuleysan lahayd inaad laba shay ka guuleysatid? mushaarkaagan shaqeyso maxaa la lahaa ajirna ku socdo. qof walba oo shaqeysana hadduu niyad ku daro camal walba uu qabanayo asoo maxaa la lahaa ku guuleysanayo wixii markaasayta oo xaq u lahaa shaqadaasayta iyo ajir ilaahay dhankiisa ah. marka muhiim waa niyada. tusaale hadaa sii wadno qofka markuu waalidkiisa wax usoo qabanayo, hooyadiisa iyo aabihiisaba wax walba uu soo qabanayo hadduu u niyeysto inuu birul waalideyn ah ama waalidiintiisa baari uu noqonayo, inuu u niyeysto camalkaas uu qabanayo inuu ilaahay u ag dhawaado asoo waalidiintiisa usoo marayo. qofka guriga joogto markay cunada diyaarinaysa haddii u niyeysato inta cuntada diyaarinaysa inay muslimiinku quudiso, muslimiintaasna oo ah dadka guriga la joogaan inuu ilaahay ajir xasanaadka siinayo. intay guda jirto jikadaas iyo cuntadaas ay diyaarinaysa ilaahay ajir xasanaad ayuu qoraa. maanta markuu qofku u imaado oo ku weydiisto caawimaad, caawimaadaas markaa siinaysid inaa u niyeysatid qof muslim ah kurba adduunka qaada, asagana ilaahay ayaa kurba aakhira ka qaadaya. waa camal basiit oo yar ah oo mar walba aan sameyno, laakiin niyada ku darna ayaa ilaahay agtiisa waxay ka dhigaysaa camal weyn, ajirna adduunka waa ka heleynaa, aakhirana waa ku heleynaa. marka akhyaarta camal niyada aad ay muhiim u tahay. marka isku dayno camal walba aan qabanayno inaan niyad yar ku darno oo ilaahay agtiisa uu ag dhawaanayno. ugu dambeyntii waxaa idin rajeynayaa nolol saameyn leh oo qurux badan insha Allah. maca salaama.